hay-adda duulista hawada ee Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay in garoon cusub ay ka dhisayso duleedka magaalada Muqdisho. Dhinaca kalena waxaa marar badan soo noqnoqda digniino uu Mareykanku soo saarayo oo ku aadan amniga garoonka Muqdisho oo ay sheegeen inuu bartilmaameed u noqon karo weerar argagixiso. Haddaba arrimahani waxaan ka wareysanaynaa oo stuudiyaha VOA ee Washington marti inoogu ah maareeya ku-xigeenka hay-adda duulista hawada ahna maareeyaha guud ee garoomada Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Garyare. soo dhawo marka hore aad u maasantahay Falastiin bal intaan u gudbin marka hore arrimaha la xiriira hay-adda duulista hawada iyo garoomada bal safarkaaga Mareykanka nooga waran muxuu ahaa ujeedkiisa aad u maasantahay Falastiin mar kale adigii bahda VOA safarka aan halkan ku nimid wuxuu ahaa shir la xiriiray arrimaha amniga garoomada oo ay qabatay hay-adda la yiraahdo TSA Mareykanka garoomadooda qaabilsan wadamo badan oo adduunyada kamid ah isugu yimid waxaana xoog lagu saariyay sida looga shaqeyn karo badqabka ammaanka garoomada oo waliba wadankan iyo wadamo badan oo ilaa 60 wadana ay isku yimaadeen Soomaaliya anagoo mataleynana nimid aniga iyo taliyaha saldhigga airportka magaalada Muqdisho Cornel Abdifataax Bashiir Ali dhawaan waxa uu sheegay maareeyaha hay-adda duulista hawada in garoon cusub ay ka dhisi doonaan duleedka magaalada Muqdisho muxuu yahay garoonkan baahida nooceeha ayaa sakeenta dhismihiisa sida la socotid ba garoonka Aadan Cadde International Airport waa garoonka hadda ugu badan ama caasimadda ay dalku leeyahay sida la socotidna ciriiri badan baa ka jira marba marka si dambayso taranka diyaaradaha ka soo degaya internationalka ah iyo kuwa localka ahba sida darteed baaxadiisa iyo space-ku uu hayo iyo saxmadda culeyska diyaaradaha ka jira ogood waxa laga maarmaan noqotay in la raadiyo garoon ka weyn kan oo muddo la qorsheynayay taas oo ka iimaanaysa qorshaha aragtida madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo fulinta ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre annagana oo xil saarnaa hay'adda duulista ahaan sida darteed ayaa qorshuhu loo dhaqaaqay u ahaa in garoon ka weyn kan la sameeyo lagana helo dhinaca ilmacaan dhinaceeda oo badda saaran waan rajaynaynaa in dhawaan la dhagax dhigo ujeedkiisana waxa keenta baahida culeyska diyaaradaha waxa sheegtay in saxmad badan ay jirto laakiin iyadoo taasi ay jirto haddana airportka Muqdisho markaad ka soo degayso waxa arkaysaa dhismayaal fara badan oo hareeraha lagu dhisay runwayga ama dhabihii ay diyaaraduhu ku carari jireen in uu isaga laftirkiisu soo gaabtay sababtuna ay tahay dhismayaashaas faraha badan badqabka dhismayaashan iyo amniga diyaaradaha ma la fiiriyo adigu qiimeyn ma ku sameyseen halista ka dhalan karta in dhismayaal dadweyne waliba shacab degan laga dhisa hareeraha garoonka ilaa xad sida hadda lagu shaqeeyo badqabka garoonka diyaaradaha aad u fiican yihiin laba jihaana laga soo degaa waa run inay dhismayaal tiro badan oo aan gudaha airportka ahayn laakiin banaanka airportka ay socdaan iyagana qayb ka yihiin in la raadiyo meel ka fog dhismayaashaasi laakiin runwayga airportku leeyahay wax dhismaa kuma imaanin dhismayaal uma dhawa waa ka bid qabaan laakiin haddana marka la rabo in la ballaariyo ugu yaraan waxa laga yaabaa in ay 200 diyaaradood habeenii maalintiiba ay isticmaalaan garoonka magaalada Muqdisho 200 diyaaradood iyo airportkeena iyo saacad kasta waa dareemi kartaa culayska ka iman kara taasaa keenaysa mooyee mushkilad kale kama jirto iyo runwayga aan haysano xal ah in la helo dhinaca amniga marka la fiiriyo marar badan waxa soo noqnoqda digniino ku aadan in garoonka uu bartilmaameed u noqon karo weerar argagixiso ama ha noqoto saxmadiisa ama ha noqoto in taasi ay soo jiidanayso kooxaha weerarada geysta maxaa keenay in digniinahaasi ay soo baxaan doorso ma ku leedihiin inta aan la soo saarin digniinahaasi ma leedin la wadaaga waxa soo socda waa mahadsantahay inkastoo aad ii sheegin digniinaha cidda soo saarayso laakiin annaga hay'ad ahaan waxaa dhinaca amniga noo xil saaran oo kala shaqeynaa hay'adaha amniga dalka ama nabadgelyada ha noqdeen ama booliska ha noqdeen kuwaasoo inta badan hadda sidaa la socotidba aan soo saarin digniino khatar ah maadaama shaqadooduba ay tahay ilaa iyo xadna amniga airportka 100% waa fiican yahay mushkiladna ma jirto way jiraan wadamo shisheeye oo soo saara laakiin annaga waxaan ka shidaal qaadanaa kuna shaqeynaa maadaama aan dawladda Soomaaliya aan ka tirsanaa madaxana ka nahay hay'adaha amniga ay waxay soo saaraan kuwaasan ilaa hadda mushkilad kama hayna airportka dhawaan waxaa qalqal galay hagista diyaaradaha ama hay'adda aviationka ama duulista hawada iyadoo diyaarada la sheegay in la siiyo ama ra'iiska hor imaanay maxay ahayd dhacdadaasi maxaa sababay sida xaqiiqada ah wararkaasi ma aha kuwa saliya raad toona leh
waxay ahaayeen warar social media ku kooban mana jirin wax amare iska hor imaanayo oo dawladda Soomaaliya hay'adda duulista ay diyaaradaha hawadeeda isticmaalay ay siisay haddii si jiri lahayd waxa loo mari lahaa processka oo dawladda adduunka ka tirsannahay dacwadeedana soo gaari lahayd diyaaradaha la sheegay laakiin kabtanadii diyaaradaha qaar wada soo galiyay barnaamijka horta waxa arkaysi waxay ahaayeen dad diyaaradda wada oo iyagu telefoon ay wada hadlaayeen waxaas hadda YouTube waa ka daawan kartaa waana dhageysan kartaa laakiin lama hadlayaan operationka dadka noo jooga howlwadeenadeena hawada hagaay ee Soomaaliya ee laba diyaarado iyaga danooda oo wada hadlaay ugu dambeyntii waxaa jira in dhawaan la dilay mid kamid ah shaqaalaha hay'adda duulista hawada lalana xiriiriyay muranadan ku saabsan maamulka hawada iyo arinta Soomaaliland arintaasi ka waran maxaa ka soo baxay baaritaankii oo dhowr bilood hadda qaatay waa mahadsan tahay marka ugu horeysa Allah u naxariisto walaalkeena Cabdinaasir waa run geeridaasi hay'adda guud ahaan ayay la soo gudboonaatay culays weyn waa ahayd ani shakhsiyan horta markaan hay'adda la soo magacaabay uu ka maqnaa dalka waxbarasho dibadda u jiray markii uu soo noqdayna waxaan kulanay geeridiisa iyo magaciisaba hay'adaha baarista ee dimi baarista ayaa loo xilsaaray inay arrintaasi baaraan iyagana inay ka gudubtay oo dhinaca garsoorka xeer ilaalinta loo gudbiyay inay cadaalad siiyaan eheladii marxuumka ayay gacanta ku hayaan welina waa wax iyaga dhinacooda ku xiran annaga dhinaceen kuma xirna aad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa maareeya ku-xigeenka hay'adda duulista hawada iyo agaasimaha garoomada Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Garyare oo nagu soo booqday stuudiyaha VOA aad u mahadsan tahay Sacuudi Carabiya